maxaad ka ogtahay dagaalka Mrs Wall iyo Queen Canab isma dhaanto iyo dhashooda ayay hadda ka dhax bilaabatay waa laba shaydaan waxa isku kor aflagaadeeyeen waalidiintooda maxaa ka dhaxeeyo maxay isku qabteen marunba inay isku dagaaleen nin madaxiisa marka hore waxaan ka codsanayaa intaan warbixintan daawan inaad muuqaalkan leeg saarto oo share gareyso saaxiibada sidoo kalena aad saaxiib igula noqoto barteeda Facebook ee Cabdicasiis Xalliye waxay ahaayeen laba saaxiib ah oo ku saaxiibay fisqiga yaalaalada TikTok waxa ay ku caan baxeen dhaqan xumada taala social media aad ay muuqaalo isugu duubi jireen balse muuqaaladani waxay ahaayeen kuwo inta badan bulshada dhibsatay oo ay qaawan yihiin labadoodaba xataa ayagoo aanan ka xishoonayn waalidiintooda balse maanta ayay ka dhax bilaabatay mid walbana mid kale ayay ku eedeysay inay tahay qof xun oo ka tumata hoteelada haddaba yaad isleedahay adigu labadaani qof waakay qofka xun Queen Canab waxayna ogeen in muuqaal laga duubay ay qiratay kaasi oo ay sheegtay in Snapchat-keeda lagala baxay haddaba maxay ahayd sababta ku kaliftay Queen in muuqaalkaasi ay iska duubto labadan gabdhood ee caanka ka ah TikTok kuna soo caan baxay qaawanaanta iyo anshaxumada ayaa hadda waxa ka dhax bilowday dagaal salka ku haya nin ay isku qabsadeen labada midba midka kale sirta ay ka haysay ayay banaanka keentay wiliba si live ah iyaga oo sheegaysa in uu hebel guri gashtay xataa caydaas waalidiintooda ayay gaartay oo si live ah muuqaalada midba midka kale kula jiray maxay tahay sababta waalidiintaani u cishan waayeen gabdhahooda oo isku caynaya si live ah wilibana sharafta iska qaadaya ka sukow caydooda wax sumcad ah uma taala baraha social media oo dharka ayay dhigteen waxaana ku dhiirigeliya dhalinyaro doonaya inay isku kala kiciyaan muuqaaladooda haddii aad ku cusub tahay page-keena Cabdicasiis Xalliye waxaan kaa codsanayaa inaad follow dhahdo page-keena muuqaalkan aad leeg gareyso una share gareyso saaxiibada aad la sii wadaagto mahadsanid naagaha qaar ah hadlaayeen siilkoodii calooshooda inay isku dhageen dabaqyo noqdeen markuu nin xitaa wasaay mujida oo qori ku tiirinayo caloosha qaadi la yahay warheede Queen Canab wax lagu caayma balahanbo ani ina u bareer ina isduubo mujida ana isoo dhige qabnaashahan ceeb ma baahan dad badan ay soo codsaday qabnaashaas faa'iido ahayd wax kale la imo shuu ku yaala siil balaqsan oo qalooco sida loo wasay uu kugu yaala uu isku qalooco qof walba soo u galay garoonku wuxuu noqay aadan caday war anigoo la iwasaayo hala soo saar Soomaali Maxamed aniga waa ka sharaf badan qabnaashana qof walba qaaban qof walba adduunka imaada qaaban wax kale igu caay horta Soomaali Maxamed wax kale ay igu caysan soo raadi qabnaash meel iska dhiga laakiin naagaha siilkoodi iyo calooshoodi kaliyood isku dhaxdhacay holof noqdeen nin walba soo biyuus ugu shubay oo siilkii caloosh la kala qaadi la oo siilka qalooc siil qalooc firiidaga hada qofkaas anima sheegay iska garta